Advanced English. Sentences jumlooyin. The students ardayda should stop waa inay joojiyaan. The vociferation buuqa. Vociferation waa shouting waa qaylada ama buuqa. The vociferation buuqa. Asab waa si degdega waa sida degdega ay suuragalka ah. Waa as much as possible waa asab. Asab waa as much as possible. Asab waa sida degdega ay suuragalka inay ku joojiyaan. When the period markii xiisada is going on ay socoto. How many times meeqa waqtiyood does he play truant ayuu isaga gambiyaa. Play iyo truant waa israaca marka truant waa gambinta waa in iskuulka laga maqnaado. Does he play truant ayuu gambiyaa each week isbuuc walba. A friend of mine mid saaxiibadeyda kamid ah told me ayaa ii sheegay that my son in wiilkayga plays hooky inuu gambiyo every day maalin walba and triggers inuu kiciyo chaos waa jahwareer ama fawdo ama nidaam daro. Chaos waa jahwareer ama nidaam daro ama fawdo. An insubordination iyo amar diido markuu yimaadana amar diido iyo fawdo buu kicinaya iyo jahwareer. Does that issue arrintaas exist miyay jirtaa? You have not brought ma aadan keenin the answers jawaabaha of the exercise ee layliga. You started waxaad bilowday skiving inaad ka dhuumato ama inaad dhuumato skiving inaad dhuumato nowadays maalmahan. Skive waxaa loo isticmaalaa badan Britishka isticmaalaan. Skive waxaa loo isticmaalaa qofka inuu ka dhunto ama ka maqnaado oo uu ka fogaado cashirkiisa ama shaqadiisa. badanaa marka waxaa laga isticmaalaa waxbarashada sida qofka inuu xiisadiisa iyo casharadiisa ka maqnaado. You started waxaad bilowday skiving inaad dhuumato macnaha inaad casharadaada iyo hawlahaaga waxbarasho ka dhuumato. marka skive badan waxaa loo isticmaalaa qofka inuu hawlihii waxbarasho laga rabay sida jaamacadda ama iskuulka inuu ka dhunto ayaa leedahay skive. Nowadays maalmahan insolent students arday edab daroolayal ah ama aan akhlaaq lahayn. Insolent waa aan akhlaaq lahayn. You are insolent person hatta qof aan akhlaaq lahayn edab lahayn. Insolent students arday edab laawayal ah. Bully waxa ay boocsadaan oo ay gumaystaan oo dhibaan. ereyga bully waxa la qof ka tabar yar ina mar walba dhibto disho oo si xun u gasho. marka bully waxa ay boocsadaan oo ay dulmiyaan oo ay dhibaan. The weaker ones kuwa daciifiinta ama tabarta daran. And I am now poised haddana waxaan heegan u ahay ama diyaar u ahay. Poised I am now poised waxaan heegan u ahay. I am now ready adoo dhaw. I am now ready. I am now poised I am now poised waxaan heegan u ahay to inform inaan ku wargeliyo u sheego that transgression xadgudubkas. Transgression waxay la mid tahay violation waa xadgudub samayn. That transgression xadgudubkas to the principal maamulaha. To the principal. He has truly clank wuxuu si dhaba ama run ah u qabsaday ama ugu dhagay. Clang waa ku dhagid oo cling baa la keenay. He has truly waa sida runta ama dhabta. He has truly clang wuxuu si dhaba ama run ah ugu dhagay ama u qabsaday. Clang waa qabsasho to the rules xeerarka ama shuruucda of the schoolka. Why sababtee don't these cheek boys wiilashan edabta daran. ereyga cheek waxa la dhabanka. Cheek waa dhabanka. Cheeks waa dhabanada. markii way araacis cheek way marka araacis waxay noqonaysaa aan edab lahayn. You are cheeky person. You are cheeky boy. You are cheeky girl. Why don't these cheeky boys why sababtay don't these cheeky boys wiilashan edabta daran cling aysan ugu dhageen ama u qabsanayn to the same rules isla xeerarka ama isla shuruucda isku midka ah as that courteous boy sida wiilkaas macnaha edabta leh sidoo sameynaya amal ma ayagana ku dhagaan xeerarka macnaha ama shuruucda. Courteous waa edab leh. Courteous halaga keenay courtesy waa edabta waa courteous edab leh noqonaysaa. Let my chance be given to me janiskayga halaysiyo. Let ogolaada my chance janiskayga ama kanshadayda be given to me in adiga laysiyo. Let my chance be given to me
marka macnaha tusaalaan meel aad ka qayb galayso war chance ka halaysi let my chance be given to me chance ka halaysi I want to waxaan doonayaa to propose inaan soo jeediyo propose to suggest you propose suggest amalat to propose inaan soo jeediyo here halka inaan ka soo jeediyo my own attitudes aragtiyadayda gaarka ah own oo wixii gaar ah own marna lahaansho bay noqotaa attitudes waa aragtiyo since maadaama you have talked about aad ka hadasheen wax ku saabsan yours midiina ama midaada hal qof aduuya macna you adiga marna waa idinka Soomaa marka adiga waxaaga aad leedahay yours waxaaga wixiina marka leedahay yours unba isku mid shake uruh shake waa ruuxid shake uruhda tree geedka vigorously waa si xoogan ina si awood leh it will finally fall ugu dambeyntii wuxuu ku soo dhici doonaa on the ground dhulka he was isagu wuxuu ahaa a cavalry man nin fardoolay ah cavalry waxa la yiraahdaa ninka farasta ku dagaalama oo fariska ah he was isagu wuxuu ahaa a cavalry man nin fardoolay ah who used kaasoo uu isticmaalay sword waa safe isticmaalay sword safe spear American waxa loo yaqaan spear waran isticmaalay dat gamoon isticmaalay an iyo arrow waa fallaar isticmaalay wuxuu u isticmaalay in his battle dagaalkiisa dhexdii battle waa dagaal American waxa loo yaqaan parallel macna meeshtiisa arka dhigayaan in his battle dagaalkiisa against uga soo horjeedo the infidels gaalada the infidels waa kaafiriinta ama gaalada the infidel waa mufrad waa isar raacina dhumarka jamci noqonaysa the infidels gaalada hypocrites waa munaafiqiinta ama laba wajiilayaasha hypocrites waa munaafiqiinta ama laba wajiilayaasha hypocrite ahead iba u dambeysay isbal lagu darmarka hypocrites an iyo apostates kuwa diintooda ka ridooba ama diintooda ka laabtay apostate waa murtad waa qofka macna diintiisii ka baxay banaanka ka istaagay ka ridooba ka laabtay apostates iyo murtadiinta ninkaas sas buu ahaa he was isagu wuxuu ahaa really xaqiiqdii a hero haliyay buu ahaa who kaasoo restored soo celiyay restore waa soo celin the independence who kaasoo restored soo celiyay restoration waa soo celin who restored kaasoo soo celiyay American waxay dhahaan restored British ama iska arto qariyaan restored who restored kaasoo soo celiyay the independence madax banaanida ama xornimada of our country ee wadankeena sovereignty waa madax banaanida ama xornimada is valuable wax qiimo leh it's good waxa wanaagsan to break in lagu afuro ama soonka la isaga jebiyo to break in lagu jebiyo ama la isaga furo the fast soonka with dates mina timir in lagu afuro ereyga date timirna waa loo isticmaalaa date sidoo kale taariikhna waa loo isticmaalaa date sidoo kale waxa loo isticmaalaa shukaansiga marka I date this girl gabadhana shukaansada he dated this girl gabadhana shukaansada he was dating that girl gabadhaas shukaansanay marka date shukaansiga waa loo isticmaalaa hada timir ugu jirtaa with dates timir if you cannot get any hadaadan midna heli karin hadaadan hal timir heli karin then kadibna you should break waa inaad ku jabisaa ama ku furtaa your fast songkaaga with water biyo isaga afur for sababtoo ah water biyuhu is purifying waa wax nadiif ah ama nadiifiye ah wax nadiifiye purifying wax nadiif ah waa nabiga baa sida yiri in macnaha qof timir uu ku afuro haduusan awoodin timir haysan inuu biyo isaga afuro waa sida nabiga ka sugnaatay this was tani waxay ahayd our prophetic tradition waa sunnadii ama dhaqankii nabigeena prophetic waa prophet nabi soo mahan prophet ahayd IC al raaciyay adjective laga dhigay adjective prophet waa noun soo maha marka IC bal raaciyay this was tani waxay ahayd our prophetic tradition waa sunnadii ama dhaqankii nabigeena sallallahu alayhi wasallam don't chew ha ku calalin ama ha ku calaanjin chew waxa la yiraahdaa inaa calaanjiso calaliso don't chew ha ku calalin ama ha ku calaanjin ee gaam xanjo ereyga gaam xanjada la yiraahdaa gaam sidoo kale waxa loo isticmaalaa ciridka ciridka waa la yiraahdaa gaam sidoo kale waxa loo isticmaalaa xabagtana waa loo isticmaalaa don't chew ha ku calalin ee gaam xanjo in the class fasalka and don't even hitaa spit andhoofna ha ku tufin on the floor
sagxadda ama ismiidka ereyga floor artada ku dhawaaqdan ka floor macna arta waxa ku dhawaqa American mugta haddii arta iska qarso waa British accent marka on the floor sagxadda ama ismiidka loo isticmaalaa floor sidoo kale dabaqna loo isticmaalaa if I proclaim haddii aan shaaca ka qaado soo bandhigo oo aan sheego proclaim waa proclamation ala keenay waa shaac ka qaad wixii la soo bandhigo qofka sheego if I proclaim haddii aan shaaca ka qaado a congenial topic mawduuc macnaha haboon congenial waa suitable wixii haboon oo heer sare ah ama friendly wala yiraahdaa a congenial topic mawduuc haboon oo heer sare ah haddii aan shaaca ka qaadon sheego do you agree with me ma igu raacaysaa do you agree with me ma igu raacaysaa ama waxa leedahay do you see eye to eye with me ma igu raacaysaa tan waa sarbeeb waay do you see eye to eye with me eye il waa somaha sina waa arkay laakiin do you see eye to eye with me waxay la mid tahay do you agree with me ma igu raacaysaa ama waxa dhigtaa do you jibe with me do you jibe with me ma igu raacaysaa jumlada 12aad do me a favor asxaan ii samee do me a favor asxaan ii samee favor do me a favor do me a favor asxaan ii samee let me sip you a glass of water let me sip an kabado you a glass of water glasskaaga biyaha sip waa kabasho my throat waa cunahayga ama dhuuntayda throat waa dhuunta my throat dhuuntayda is very dry aad bay u qalalan tahay because of thirsty on daradi qalalkaas waxa sabab u ah on ba sabab thirsty marka waa on I was at market suuqa baan jiray yesterday shalay to buy san ugu soo iibiyo fenugreek waa xulbada waa taqaanay fenugreek xulbad an iyo turmeric iyo huruud wajiga la marsado ee jaalaha ah and turmeric iyo huruud to my wife xaaskayga inaan u soo iibino badana turmeric ama huruud badana dabka isticmaal wajiga marsadaan isku qurxiin I was at market yesterday suuqa baan jiray shalay I was at market yesterday shalay suuqa baan jiray to buy san ugu soo iibiyo fenugreek waa xulbad aan iyo turmeric iyo huruud to my wife xaaskayga jumlada 4 you are limping today maanta waad dhutinaysaa limp waa qof markuu dhutinayo uu heetinayo you are limping waa heetinaysaa waad dhutinaysaa today maanta what happened to you maxaa kugu dhacay jumladan ugu dambayso 15aad I fell waxaan ka soo dhacay macnaha fell waxa la keenay fall soo dhicido Soomaan fall waa soo dhaca fell dhacay fallen dhacay marka failad waa past waan qaadan doonaa verbs marka mareen I fell waxaan ka soo dhacay from a ladder jaranjaro ayaan ka soo dhacay ladder waa jaranjaro and sprained waxaan ka murgacday sprain waa murgacasho and sprained waxaan ka soo murgacday in the left leg lugta bidix leg waa lug leftin waa bidix lefti markin bidix aan loo isticmaalo marna waxa loo isticmaalaa tagid Soomaali left ugu tagay sida darteed I'm now hopping haddana waxaan ku tukubayaa I am now hopping hadda waxaan ku tukubayaa with this stick ushan aan ku tukubayaa okay stick waa ul stick mar waxay noqotaa ul stick marna waxay noqotaa ku dhajin hadda ku dhaw stick ku dhaji this paper warqadan on the wall derbiga waan ku dhigi karaa stick ku dhajin way noqotaa ama stick to way noqotaa ku dhigid stick to your decision go'aanka ku dhig stick to your